بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما خميسة أو جمعة أي سوق ليسو لبيا لباتنك بشا جانوري سنة كالبكون لباتن يلح أو كوبهجن صدح هذا بشا الشعبان سنة كون أفر بقولا فرتن يتضبا تاريخ ذي هجرية ده كسو دوادا مركله إيا براميجكي قوبانها قضبضا آن إذين كوغوها إنانا وحا كمدا تركيغا أو مركله كعليه إنو سي أدق أغسو هرجيدو faragelin military oo lagu sameeyo Iran ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil oo ku sifeeyay Netanyahu iyo la taliyaashiisa argagixiso doonaysa dagaal aan dhamaad lahayn Hamas oo cambaaraysay ku darista Netanyahu lagu soo daray waxa loogu yeero golaha nabadda ee Trump madaxda uu ka yahay Iran oo shaacisay in rasaas lagu farsameeyay Israa'iil lagu adeegsaday barnaamijyadii rabshadaha watay ee dalkaasi dhawaan ka dhacay kuwaasi ay ku dhinteen dad badan oo caruur ay ka mid tahay dawladda waddanka Togo oo Burkina Faso u gacan gelisay madaxweynihii hore ee waddankaasi Burkina Faso ee Ibrahim Traoré xukunka uu ka tuuray sheekada ugu dambeysay barnaamijkan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay ninkan wuxuu ahaa ciyaartoy kubadda cagta ah mar wuxuu noqday tababaro kooxeed oo waliba wuxuu maamulayay kooxo Yurub ka dhisan laakiin imika wuxuu bilaabay shaqo ka duwan shaqadaasi oo maqaaxi ayuu ka shaqeynaya waa sheeko cajiib ah dhamaan wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay inta hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha hesha wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer waan ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa Iran oo ka soo yeeray war weyn oo ku aadan rabshadihii ka dhacay magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalkaasi baaritaan la sameeyay gaar ahaan kan loo adeegsado dambiyada caalamiga ayaa muujiyay in rasaastii loo adeegsaday qaar ka mid ah dadkii ku dhintay banaanbaxyadii rabshadaha watay ay ka mid tahay rasaas lagu farsameeyay Israa'iil baaritaanada ayaa waxaa lagu sameeyay meydadka caruur lagu diray rabshadaha sida lagu sheegay warbixin ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka Ruushka ee TASS ilo wareed amni oo Iiraaniyiin ah oo magacooda qariyay ayaa sheegay in laba gabdhood oo yaryar lagu dilay rasaas ay rideen kooxaha hubaysan oo lagu tilmaamay calooshad oo shaqaystayaal waxaana la sheegay in ku lug lahaayeen rabshadaha gabdhahaasi mid ka mid ah da'deeda waxay ahayd 8 jir waxaana lagu toogtay magaalada Isfahan iyadoo la sheegay in rasaasta lagu dhuftay iyadoo markaasi qoyskeedu ay wax iibsanayeen waxaana rasaastu ay kaga dhacday caloosha garka iyo qaybta dambe ee madaxa baaritaanka meydkeeda ayaa muujiyay in la adeegsaday rasaas heer ciidan oo Israa'iil lagu farsameeyay kiiska labaad sidoo kale waxaa la sheegay mas'uuliyiintu ay tilmaameen in uu ahaa Malina Asadi oo ahayd gabar 3 jir ah oo lagu toogtay magaalada la yiraahdo Karmanshah waxaana la sheegay rasaastu inay kaga dhacday dhabarka 7 January iyadoo aabaheed kala soo laabanaysay farmashiye dhamaadkii bishii hore barnaamijyo waaweyn ayaa ruuxay Iran kuwaasi oo ka bilowday cabasho dhanka dhibaatooyinka dhaqaalaha la xiriirta oo ka dhashay cunaqabataynta muddada dheer saarnayd Iran waxaana la sheegay taas inay sababtay dibadbaxyo waaweyn oo markii hore ku bilowday si nabdoon oo ay sameynayeen ganacsatada magaalada Tehran gaar ahaan suuqyada ku yaal maamulka ayaa sheegay in darbaadka dibadbaxayaashu ay ahaayeen kuwa qaanuuniya laakiin faragelin ay ka timid kooxo rabshado wadayaal ah oo taageero ka helaya Mareykanka iyo Israa'iil sida Iran ay sheegayso kuwaasi oo si cad fagaare u fuliyay mas'uuliyiinta Iran ayaa ku eedeeyay hay'ado sirdoon oo ka tirsan Mareykanka iyo Israa'iil inay hubeeyeen tababareen kana qorteen qaybo kala duwan oo dalka ka mid ah xubno rabshadaha kicinayay waxaana la sheegay inay burburiyeen rabshado wadayaashu hantida dadweynaha isla markaasna waxa la dilay dad tiradoodu ay gaarayso 3117 qof waxaana la sheegay in dadkaasi ay u badnaayeen rayid iyo waliba ciidamada ammaanka wahagaan haddaba xaaladda dhinaca kale bariga dhex marka la eego weli arrinta Iran cirka ay ku shareeran tahay
sidii aan idinkugu soo gudbanay wararka iyagii toddobaadkanna wadamada Turkiga, Sacuudiga, Qatar iyo Cumaan waxay ahaayeen kuwa si cad ugu sheegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inaysan habbooneen duulaan lagu qaado wadanka Iiraan. caawa mar kale Turkigu wuxuu cadeeyay inuu ka soo horjeedo weerar lagu qaado Iiraan. haddaba aynu eegno warbixin ay qortay wakaaladda wararka Anadolu ee laga leeyahay dalka Turkiga. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa caawa mar kale wuxuu ku celiyay diidmada dalkiisa ee ah inuu ka soo horjeedo faragelin kasta oo shisheeye oo lagu sameeyo Iiraan, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Turkiga. waaxda isgaarsiinta madaxtooyada ayaa sheegtay in Erdogan qadka telefoonka uu kula hadlay dhigiisa Iiraan Mas'uud Pezeshkian isagoo carabka ku adkeeyay muhiimadda nabadda iyo xasiloonida Iiraan, isla markaasna si cad uu u muujiyay diidmada Turkiga ee faragelin shisheeye. bayaanka ayaa intaasi ku daray in labada hogaamiye ay ka wada hadleen horumaradii ugu dambeeyay ee Iiraan, xiriirka laba geesoodka ah iyo arrimaha goboleed, iyadoo Erdogan uu xusay in xalinta khilaafaadka iyadoo aan la kicin xiisad ay dan u tahay Ankara. haddaba Trump ma wuxuu yeeli doonaa warka Netanyahu oo ah in la weeraro Iiraan, mise saaxiibadiisa gobolka ayuu wax ka maqli doonaa oo dhegta u raaricin doonaa, ha noqoto Sacuudiga, Qatar, Cumaan iyo weliba Erdogan oo had iyo gooraan uu yiraahdo waa nin saaxiibkaya. waynu arki doonaa meesha arrintaasi ay ku dambayso. adigoo laftigaaga daawade qaybta hoose ee fariimaha ra'yigaaga nagula wadaag. hagaag xagga qaaradda Afrika haatan aynu eegno. dowladda waddanka Togo ayaa si rasmi ah ugu wareejisay dowladda Burkina Faso madaxweynihii ku meel gaarka ah ee hore ee dalkaasi Burkina Faso Paul Henri Sandaogo Damiba kadib markii lagu qabtay caasimadda Lomé, iyadoo laga jawaabayo codsi rasmi ah oo ka yimid Burkina Faso. wasiirka cadaaladda ee dalka Togo Bakoum Adakhroufi ayaa sheegay in Damiba la xiray 16kii bishan si loo fuliyo amar soo qabasho oo codsi ah oo soo dhiibid ah oo ka yimid Burkina Faso. waxaa intaasi uu ku daray in maxkamadda racfaanka ee Lomé ay ansixisay codsigaasi, isla markaasna Damiba lagu wareejiyay mas'uuliyiinta dalkaasi toddobaadkan. Damiba ayaa ah korneel ku-xigeen, waxaana lagu soo warramayaa in uu qabsaday awoodda waddanka Burkina Faso sanadkii 2022 kadib afgami military oo xilka looga tuuray madaxweynihii la doortay Roch Marc Christian Kabore. si kastaba ha ahaatee 9 bilood kadib ayaa isna xukunka wuxuu ku waayay afgambi uu hogaaminayay Colonel Ibrahim Traoré, kaas oo weli hogaaminaya dalka. xeer ilaalyaha Ouagadougou ayaa Damiba ku soo oogay dacwado ay ka mid yihiin musuqmaasuq, luusansho hanti dadweyne, hanti ku helid qaab sharci darro ah, kicin dambiyo iyo lacagaha sida qaanuunka ka baxsan la isugu gudbiyo. dowladda Togo ayaa sheegtay in go'aanka dhiibistiisa lagu sameeyay damaanad qaadiyo ku saabsan badbaadinta jirkiisa iyo xuquuq inuu u helo maxkamadda cadaaladda, iyadoo xustay in maqnaanshaha xukun dilah uu door ka qaatay go'aanka, inkastoo Burkina Faso dhowaan ay soo celisay ciqaabta dilka dembiyada khiyaanada qaran ah. waa tahay warkaas halkaas aynu kaga gudubna. waxaan u gudbaynaa ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil oo caawa si adag u cambaareeyay Netanyahu, kuna tilmaamay isaga iyo la taliyaashiisa inay yihiin dambiilayaal. maxay tahay wax cuskanaya? waxaan kaloo idiin haynaa Xamaas oo war ka soo saartay go'aamada Mareykanka ee Netanyahu lagu daray in uu xubin ka noqdo waxa loogu yeero golaha nabadda iyo sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka. intaan u gudbin wararkaas iyo weliba warar kale aynu ku hakanoo qadar xayeysiina. haddii aad baxayso dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, warar, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. wararka kale waynu u gudbaynaaye intaynu barnaamijka ku jirnay war degdeg ah ayaa hadda soo dhacay. wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa waddanka Mareykanka ayaa waxa uu ka soo xigtay ilo sheegaya in Mareykanka uu ka fakarayo in si buuxda uu uga baxo ciidankiisa ugala baxo waddanka Suuriya.
lama oga arrintan goorta ay dhici doonto sida ay u dhacayso iyo sababteedaba laakiin waa war hadda soo dhacay dabcan warkan gacantaynu ku haynaa isagoo faahfaahsan barnaamijyadeena gaar ahaan barnaamijka xulashada wararka ee subaxnimo ayaan idinkugu faahfaahin doonaa haddii aan la idmo waa hagaag imikana Israa'iil ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Ehud Olmert ayaa ku eedeeyey ra'iisul wasaaraha imika xilka haya Benjamin Netanyahu iyo la taliyaashiisa u dhow in ay doonayaan dagaal aan dhammaad lahayn isagoo sheegay in mucaaradka Israa'iil ay yihiin kuwo aan awood lahayn Olmert oo xafiiska ra'iisul wasaaraha hayay intii u dhaxaysay 2006 ilaa 2009 ayaa waraysi uu siiyay idaacadda 103 FM wuxuu sheegay in Netanyahu uu si cad u doonayo sii socoshada dagaalka isagoo ku tilmaamay qaar ka mid ah la taliyaashiisa argagixisa oo xitaa dalal ay ka mid yihiin Masar iyo Britain u arkay cadow isagoo ka hadlayay xabadjoojintii dhaqan gashay 10kii Oktoobar Olmert ayaa sheegay in Israa'iil ay si joogto ah u jabisay xabadjoojinta taasi oo sababtay dhimashada boqolaal Falastiiniin ah intooda badanna ay yihiin haweenay caruur iyo burbur baahsanna sidoo kale sababay waxa sidoo kale uu dhaliilay mas'uuliyiinta Israa'iil oo ugu baaqayo inay si rasmi ah ugu wareega mas'uuliyiinta Israa'iil ee ku baaqaya in si rasmi ah loola wareego daanta galbeed ayuu cabaareeyay iyo taageerada ay siinayaan rabshadaha ay sameynayaan Yahuudda deegaaminta looga sameeyay dhulka Falastiiniyiinta Olmert ayaa xusay in ku dhawaad 75,000 oo waa 750,000 oo Israa'iiliyiin ah la dejiyay daanta galbeed ee la haysto isla markaasna maalin walba weerar ay ku qaadaan muwaadiniinta Falastiiniyiinta wuxuu ku nuuxnuuxsaday in la wareegida daanta galbeed ay gabi ahaanba baabi'in doonto halka labada dal oo ay taageerayso qaramada midoobay waxaa sidoo kale uu dhaliilay mucaaradka Israa'iil isagoo sheegaya in hogaamiyaashoodu aysan lahayn firfircooni iyo awood ay kula tartamaan xukuumadda isla markaasna Israa'iil ay lumisay taageeradii caalamiga ahayd sabab la xiriira siyaasadaha xag jirka iyo khilaafka joogtada ee ay la galayso hogaamiyaasha caalamka waa tahay intaas kuma eka Hamas ayaa war soo saartay waxay ka soo horjeedaa Netanyahu in lagu daro golaha nabadda ee uu sameeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa goordhaweyta wuxuu baahiyay in dhaqaaqa Hamas uu si adag u cambaareeyay ku darista ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu lagu soo daray waxa loogu yeeray golaha nabadda ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bayaan uu soo saaray dhaqaaqo ayaa waxa lagu sheegay in tilabadaasi ay si cad uga hor imaanayso mabaadi'da cadaaladda iyo isla xisaabtanka gaar ahaan iyadoo Netanyahu uu yahay qof ay baadi goobayso maxkamadda dambiyada caalamiga si loogu soo oogo dambiyo dagaal bayaanka ayaa waxa taasi uu ku daray in ku darista Netanyahu golahan ay muujinayso iska indhataridda ku aadan dambiyada ka socda Mareyka Gaza xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa arbacadii shalay ahayd waxa uu sheegay in Netanyahu uu aqbalay casuumaad uu ka helay Trump si uga mid noqdo golaha nabadda Hamas ayaa ku eedeysay Netanyahu inuu si joogto ah u carqaladeeyo heshiisyada xabadjoojinta isla markaasna uu sii wado weerarada ka dhanka rayidka xaafadaha la degan yahay xarumaha dadweynaha iyo goobaha gabaadka bayaanka Hamas ayaa waxa lagu yiri guumaysiga Israa'iil waa asalka argagixisada isla markaasna wuxuu halis toos ah ku yahay nabadda iyo amniga gobolka iyo caalamkaba Hamas ayaa ku baaqday in la joojiyo wax ay ku tilmaamtay xasuuq iyo siyaasado gaajeysiin ku salaysan laguna qaado tilaabo sharciya dhammaan mas'uuliyadda ka dambaysa arrintan ugu horeeya Netanyahu ayaa ka baaqday ka qaybgalka munaasabadda furitaanka golaha nabadda ee ka dhacday magaalada Davos ee waddanka Switzerland kadib markii dowladdaasi ay sheegtay inay u hoggaansami doonto amarka soo qabashada ee maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC ay soo saartay bishii November 2024 si loo soo qabto Netanyahu iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant kuwaasi oo lagu eedeeyay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah bini'aadamnimada intii lagu jiray dagaalka Gaza waaga qodobkaas halkaas aynu kaga gudubno iminka waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aalab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen muddooyinkan ciyaartoyda kubadda cagta iyo tababarayaashu waa haddii xirfad aad leedahay lacag waali ayay qaataan waxaad maqlaysaa dhowr boqol oo kun ayuu toddobaadkii qaataa nin tababaro noqday oo muddo dheerna ciyaaraha kubadda cagta ciyaarayay in ka badan 300 oo kulan buu saftay waliba mid ka mid ah kooxaha ka dhisan jarbalka
oo Werder Bremen la yiraahdo ayuu ninkani badbaadiyay xitaa iyadoo dhici rabto ka bixi rabta horyaalka Bundesliga Jarmalka ninkii imika hawshii ciyaaraha intuu ka tagay ayuu xagga maqaayadaha u leexday haddaba aynu eegna sheeko amurtan ku aadan waa hagaag ninkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Alexander Nuri wuxuu ahaa tababaro kooxeed wuxuu u dhashay dalka Jarmalka wuxuu go'aansaday inuu bilaabo shaqo ka duwan tii noloshiisii uu ku soo jiray kadib 4 sano oo ka maqnaa shaqada tababaranimada kubadda cagta wargeyska Spain ka soo baxay Barca ayaa waxa uu sheegayaa in Nuri oo 46 sano jira uu dhawaan bilaabay shaqo cusub oo ah maareynta iyo maamulidda 2 maqaayadood oo caan ah bishan January Nuri wuxuu shaqo ka bilaabay 2 maqaayadood oo ka tirsan maqaayadaha cuntada fudud ee McDonald's ee ku yaal magaalada Herzogenaurach ee dalka Jarmalka Nuri ayaa waxa uu sheegay inuu si ku meel gaar ah uu u samaystay farsamadan inuu ku bedesho shaqadiisii hore Nuri wuxuu tababaranimada ka fariistay 2022 kadib waayo aragnimo aan guul lahayn oo xitaa uu ku maamulay kooxda Kavala ee dalka Greega guulihiis ugu waaweyna waxay ahaayeen badbaadintii kooxda Werder Bremen xilli ciyaareedkii 2015-2016 Nuri wuxuu shahaadada tababarnimada qaatay 2016 isaga iyo waliba Julian Nagelsmann waa imika ninka tababaraha qaranka Jarmalka maamulaya 326 kulan ayuu saftay 36 kulanna 36 goolna waa dhaliyay imika waad arkaysaana fanaanadii tababarnimada Werder Bremen intuu iskaga siibay ayuu wuxuu gashtay fanaanadii McDonald oo wali waa faraxsan yahay markaas ciyaaraha ku jiray waa xanaaqsan yahayba waa hagaag waa tahay inta ayaan ku soo gabagabeynaya caawa barnaamijkii qobanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamij ka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo